tobankan dambe ee bisha mudnaan gooniyay leedahay walaalayaal mudnaan khaasa ayay leedahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo bisha inteeda kale soo dadaali jiray ayaa haddana tobankani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale tobanku markay soo galaan nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku dari jiray inuu xaasaskiisa ka fogaado leanna ictikaaf buu geli jiray nin ictikaaf ku jirana reer iyo xaas iyo gogashoodu uma taallo habeenkiisana waa noolayn jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu ku noolayn jiray ilaahay taacadiisa quraan akhris salaad la tukado sadaqo iyo infaaq ilaahay dikrigiisa istighfaarta habeen nool buu ahaan jiray habeenka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh reerkiisana waa toosin jiray rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xaasaska iyo ehelkiisana waa kicin jiray si ay jaaniska uga faa'iidaystaan li'anna wax weeye waa wax aan la heli karin weeye waana fursad ay dhici karta inayna soo noqonin sidaas daraaddeed ehelkaaga waxaad naftaada la jeceshahay baad iyagana la jeceshahay taacada marka in la kordhiyo oo dadaalka la siyaadiyo waa hadyigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh taacada la soo siyaadaysa waxaa ka mida bishan tobankeeda dambe ictikaafka oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh tobankan dambe markay soo galaan waa ictikaafi jiray ictikaafka waxaa laga wadaa inuu ruuxu ka dhex baxo ka go'o wixii adduunka mashquulinayay ganacsigii suuqyadii dadka ku dhex jirkoodii la sheekaysigooda reerihii iyo muxuu ahaay gogashii wax kastoo mashquulinahayay inuu ka dhex baxo oo uu naftiisa masaajidka ku xabiso oo halkaa uu kula goonin noqdo ilaahay dikrigiisa tabaaraka wa tacaala iyo allah muraaqabayntiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala taacaadkiisa qalbigiisu inuu gooni u noqdo oo jirkiisa iyo qalbigiisuba ay u go'aan allah taacadiisa tabaaraka wa tacaala muxuu ictikaafayaa tobanka dambe wuxuu raadinayaa laylatul qadri buu nabigu baadigoobahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu ina yidhi tobanka dambe ka raadiya tobanka dambe haddana habeennada tirada isdheer ka raadiya haddii xataa aad caajisto oo lagaa tambato toddobada dambe yaan lagaaga tambadanin buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay ugu rajo badan tahay 21 ama 23 ama 25 ama 27 ama 29 waa habeenaday ugu rajo badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa waxaa ku sugan habeenka 27 si khaasa ahadiith ugu soo aroortay 21 kana ahadiith khaas ugu soo aroortay baa jirta warka marka la isku celceliyo culimadu waxay leeyihiin waana ra'yiga xooga badane habeen khaaso sanad walba ay tahay ma jirtee si ahadiista macnaheeda kulli ay sax u wada noqdaan oo loo kulmiyo sanad ba meel bay gashaa oo sanad waxaa dhici karta inay 21 ku jirto sanadna 25 ku jirto sanadna 27 sanadna 23 waa fadiilo warwareegayso marba meel buu alla geliyaa tabaaraka wa tacaala adiga marka haddaad tobanka dambe oo dhan habeenadeeda kulli dadaalka isku bixiso shaki wuxuusan ku jirin meelay martayba inaad heshay inaad haleeshay oo heshay ayaa soo baxaysa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala marka tobanka oo dhan dadaalkaaga ha kala goynin oo siyaadada iyo khayrka iyo wanaagga badso si aanan habeennimo kuu dhaafin biidnillaahi tabaaraka wa tacaala nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha aad uu inoogu wax way inoogu jideeyey waxaa ka mid ah tobankan dambe khaasatan laylatul qadri habeenkaas la raadinayo baadidaa luntay baadidaa la wada raadinaya qaaliga ah jawharadaas aadka qaaliga u ah oo habeenka camalkaad la timaado kun bilood camal aad la timid uu ka khayr badan yahay habeenkaas waxyaalaha aadka loo baahan yahay in loo badsado waxaa ka mid ah
habeenada la filayo ducada ka mid nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xaaskiisa Aisha ayaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow laylatul qadri haddaan haleelo ama aan islaahdo waa caawa maxaan ilaahdaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaad ku ducaysataa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allah waxa tahay midka cafinta iyo saamixaada badan ee adoomadiisa saamaxa ee rabbi oo iska kay cafi ilaahu dambigayga dhaafo ee cafi hadalka badi buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi لأن أسلم بواحد أغانيسان بريضة إيا الدعاء الله تبارك وتعالى عباداتك كوة وقود شعل يهيوه وحلو بها يا مركة إن قيامك يا استاقك يا قرآن أخرسك للسياديو طبعا كان ضمبه سيد النبي بكسر صلوات ربي والسلام عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هبينك روحي استاق ليلة القدر وإلهي طاعدي سيستاق وصلاة يا خير هبينك كل ما يستاهي دنبغي سي هره waa la dhaafi buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka inaan khayraadka siyaadsanno wixii aan horay u haynayna inaan kordhino intan soo kordhaysana inaynu ka faa'iideysanno si ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aynu u helno bishana aynu jaaniskan ilaahayna siiyo tabaaraka wa tacaala khayraad fara badan si kaydka aakhira aynu ugu gasho biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala oo dambi dhaaf iyo wanaag iyo taaco iyo khayr iyo wax mustaqbalkaaga ku anfaca maalinta qiyaamada ahibati fillah يا نور الهلال